la'aqti ruushka ayaa la qabtay lana qabtay 3 sano ka hor. Laakiin Yurub weli ma awoodo inay dhiirigeliso inay qabsato. Ugu yaraan si loo magdhowdo kaalmo loo fidiyey Ukraine. Yurub aad bay u baqaysaa. Oo si saxa. Aan eegno dhibaatadan dhinaca sharciga. Heshiisyo ganacsi oo badan ayaa la saxiixay dhex maray Ruushka iyo Yurub. Rasmiyan ma jirto dagaal. Sidna ma sheegtay dagaal. Oo si lama filaana, midowga Yurub ayaa qaadanaya lacagta Ruushka. Marka laga eego nidaamka sharciga, tani waa dambig. Waa jabinta xeerarka ilaalinta hantida dadka kale. Maalgashadayaal badan iyo deeq-bixiyayaal ka socda dalal kala duwan oo leh lacag iyo hanti Yurub ku jirta ayaa fahmi doona inay sidoo kale la tacaali karaan si la mid ah. Wax kasta oo la qaato iyada oo aan sal iyo raad lahayn, iyadoo la jebinayo xeerarka iyo shuruucda. Marka maxaa faa'iido ah inay maal qashadaan lacag Yurub haddii aan jirin damaanad qaad ah oo amniga ah? Haddii Yurub ay qabsato lacagta Ruushka, waxay burburin doontaa aasaaskeeda.